Stepkan afraad waxaa ku baran doonaa sida ugu fudud ee analysiska loo sameeyo ama loo falanqeeyo coinsyada la maalgashan karo ee faa'iidada fiican laga sameyn karo. Waxaa ka bilaabaynaa marka inaan raadino xogihii ugu dambeeyay ee looga hadlayo coinsyada faa'iidada fiican leh ee la maalgashan karo, lana rajeynayo inay dhaqaaq fiican sameyn karaan faa'iido fiicanna laga qabsan karo. Xogtaas marka waxaa ka baari karnaa dhammaan qaybaha kala duwan ee internetka. Meesha ugu sahlanna waa YouTube-ka. Tusaale ahaan YouTube-ka hadaa gashid qaybta search button-kana aad ku qortid best coins to invest in now, waxaa ku soo baxaya dhammaan fiidiyoyada update-aadka ee looga hadlayo coinsyada markaas dhaqaaqa fiican leh ama la saadaalinayo inay dhaqaaq fiican sameyn karaan, faa'iidada fiican laga qabsan karo. Haddii marka luqadda ay kugu adag tahay, waxaa sameyn kartaa injineerada Soomaaliyeed ee arrimahaas ka hadlaa ku xirmi kartaa, sida Geela Bashiir, Omar Rashiid, injineer Cabdishakuur, Hanti Yeelo iyo kuwo kaloo fara badan. Kuwaas magacyadooda hadda shaashada kaaga muuqdo ay YouTube ku qoraysa. Magacyadaas markaa qortid dhammaan waxaa arkaysaa update-aadkii ugu dambeeyay ee uga hadlayaan saadaasha suuqa. Kadib markaa xogtaas soo heshid, waxaa soo aadaysaa Coinakiska si aad u samaysid marka analysiska ku gaarka ah. San Coinakiska markaa usoo galna qaybta marketkana aan joogno, waxaa arki karnaa dhammaan coinsyada la maalgashan kara ama la gadan kara ee suuqan ku jiro. Waxaana iskugu jiraan kuwo hoos u dhac ku jiro oo calaamada guduudka ee saaran tahay, mainskan uu ku hor qoran yahay, iyo kuwo plus uu ku hor qoran yahay oo calaamada cagaaran ay saaran tahay oo kor u kac ku jira, ayagana kor u soo kacayo. Haddii aragtid suuqa coinka rabtid inaad gadatid inuu cagaar yahay ama kor u kac uu ku jiro kale, ha gadanin, faraha ka qaad, hana walwalin. Suuqan saacado kadib ama maalmo kadib dib u soo noqona, waa la hubaa midaas. Sug marka intuu hoos u soo dhacayo, markuu hoos u soo dhaco gado, markuu kor tagana iska gad. Qaacidada loo isticmaalana waa taas: buy low, sell high. Markuu hoos soo dhacana gado, markuu kor u kacana iska gad. Haddana waxaa analysiskayga ii gaarka ku sameynaa mid ka mid ah coinada xogtooda soo hele ee la saadaalinaya inay dhaqaaq fiican sameyn karaan, faa'iido fiicanna laga heli karo. Tusaale ahaan ku dhufta XRP-gan oo kale wuxuu ka mid yahay coinada la saadaalinaya inay dhaqaaq fiican sameyn karaan. Sidoo kale waana raqiis, qof walba iibsan karo. Meelaha laga analyze gareeyo ama laga qiimeeyo waxaa kow ka ah marka market cap-ka oo ah qiimaha guud ee shirkadaas ku fadhido oo ah $50.45 bilyan. Sidoo kale total supply-ga oo ah inta jeer ee sahay ahaanta loo qaatay ama la apply gareey oo ku siman 100 bilyan. Sidoo kale total circulation-ka oo ah lacagta guud ee ku wareegata suuqan oo ah $56.86 bilyan. Meesha kale ee laga qiimeyn karana waa trading view-ga oo ah aragtida ganacsiga ama dhaqdhaqaaqa coinkaas uu sameynayo. Dad badan coin inay ku wareeraan laga yaabaa, laakiin qayb lacagaha ka mid ah qadaadiic oo la gadanayo waaye. Haddaa isla fiirina 24 saac ugu dambeeya XRP dhaqdhaqaaqa uu sameeyay, halka ugu sareeya uu gaaro waa 0.5, halka ugu hooseysa ee uu gaaro markuu hoos u dhac sameeyana waa 0.4 oo u dhigmato 40 senti ilaa 50 senti inta u dhaxayso ku noqonaya 24 saac ugu dambeeyay. 7 days-ki ugu dambeysay marka isla fiirina ama 7 beri ugu dambeysay isna waa isla sidii oo kale, halka ugu sareysa uu gaaro waa 0.5, halka ugu hooseysa uu gaarana waa 0.4. Sidoo kale bisha ugu dambeysay ayadana marka fiirino waa isla sidii oo kale. Marka isla fiirino 1 year-ki ugu dambeeyay ilaa intuu gaaro markuu kor u kacay 0.7 uu gaaray ama 70 senti. Halkaas waxaa ka dareemaynaa marka in sanadkii hadda ugu dambeeyay oo kale kor u kac fiican uusan sameynin. 40 senti ilaa 70 senti intuu dhaxayso ku noqonaya sanadkan. Laakiin sanadka soo socda waxaa la qiyaasayaa in dhaqaaq fiican uu sameyn karo, weliba bisha November gudaheeda inuu gaari karo 1.5 oo kale la saadaalinayaa. Dhammaan coinsyada kala duwan ee xogtooda aad soo heshidna saan oo kale analysis ugu sameynaysaa. Markaa YouTube-kii meelahaas ka soo aragtid iyo qaybaha kale ee internetka hore kama gadanaysid. Markaa inta keentid waxaa sameynaysaa inaad iska qiimeysid market cap-ka ama shirkadaas qiimaha guud ee ku fadhiso, inta qofoodoo lacagtaas dalbate, lacagta guud ee ku wareeganayso, 24 saac ugu dambeeya dhaqdhaqaaqay samaysa, 7 beri ugu dambeysay dhaqdhaqaaqay samaysa, bishii ugu dambeysay, sanadkii ugu dambeysay, halka ugu sareeyay ee gaartay. Waxaasoo dhan markaa iska qiimeysid kadib waa gadanaysaa. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofka xogta kuu soo bandhiga marka uu baaritaanka sameynayay in coinkaas uu qiimo gooni jooga. Marka adiga soo gashid oo analysis-ka aad sameynaysidna qiimihiisa halkii la saadaalinaya laga yaabaa inuu gaare. Marka ma iska gadanaysid. Halkii ugu sareeyay ama meesha la saadaalinaya hadduu gaare, waa sugaysaa intuu hoos soo dhacayo. Marka saas sameeya hadduu ilaa yiraahdo. Qaybtan intaas ay noogu eg tahay.